waxaan rabaa inaan idin sheego fikirkayga ku aadan waxa aan ka baranay inta aan joogay gaalkacyo. waxaan ka fahmay in ay weli muuqato magaaladan dadkeedu waqooyi iyo koonfurba inay yihiin dadkii laga soo gaaray gobonnimo doonka iyo midnimada raadiska. weli waxaa muuqda raadkii dhalinyarada ee SYL oo reer mudug ay ugu badnaayeen. weli maxaa muuqda hadafyadii fogaa ee allah u naxariistee cabdullaahi ciise iyo ra-iisul wasaare cabdirasaaq xaaji xuseen. weli waxaa muuqda dareen diiran oo ka kulul meelo kale oo aan tegay marka la yidhaahdo dhiigga wadaniyadda lagu raadiyo. waxaa kaloon ka fahmay gaalkacyo inay ka duwan tahay dalka intiisa kale. waxaan ka bartay inay tahay magaalo u baahan in lagu eego il gaar ah, la fahmo xaaladda ay ku sugan tahay, xalkeedu uu ka duwan yahay xalalka kale ee dalka. marka waxaa muhiim ah inkastoo baahiyada aa qabtaan ay qabaan magaalooyin kale oo dalka qayb ka ah, haddana halkan waxaa yaalla baahiyo gaar ah oo deegaan, kuwa isdhexgal, kuwa amni, kuwa nidaam, kuwa maamul, oo u baahan in dowladda federaalku ay fahamto marka hore, madaxda dowladda federaalka, madaxweyne, ra-iisul wasaare, wasiiro, xildhibaano, senataro iyo cid walba aan fahamno xaaladda magaalada gaalkacyo si aan u helno xalki ku aadana. casharka ugu weyn oon baranay marka waxay tahay inta aanan horta ka jawaabin baahiyaha aa qabtaan iyo caqabadaha a ka hadasheen, waxaan rabaa horta in inta aan idinka bartay anigu aan u geeyo dowladda federaalka si ay usii bartaan iyaguna. laakiin halkan waxaa muuqata sidoo kale yididiiladii aan ku arkay ragga iyo dumarka soomaaliyeed ee magaaladan degan oo isku dayaya inay isdhex galaan, inay xal wada raadiyaan, inay dhistaan nidaam soomaalinimada isu keenaya, inay caqabadihii amni darrada ka gudbaan. annagana waxaa nagu waajiba inaanan xal u keenin, laakiin aan kala shaqayno xalka reer gaalkacyood ay ku heshiiyaan. intaas waa intaan gaalkacyo ku arkay. waxaa kaloon rabaa inaan idinkugu daro, way fiicneed inaan nimaadno, waana muhiim inaan kusoo noqnoqono halkan si aan casharadii aada noo dhigteen intii halkaan joogay aanay nooga lumin oo aanan imtixaanka ugu dhicin. waxaa kaloon rabaa inaan idinla wadaago gaalkacyo laga bilaabo iyo meelihii aan ka soo bilownay, laga bilaabo gurceel iyo dhuusamareeb iyo caabudwaaq iyo cadaado iyo xeraale iyo hurshe iyo labada dhinac oo gaalkacyo, meel walba oo aan soo maray waxaan ka dareemay inay socoto dabayl cusub, inuu socdo dhaqdhaqaaq cusub ee soomaaliyeed, in halyeeyadii dhaliyey gobonnimada waktigii ay joogeen dhalinyaro la mid ah inay joogto meel walba. waxaan soo arkay dad Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay midoobaan, dad Soomaaliyeed oo diyaar u ah
inay hubka iska dhigaan, dad Soomaaliyeed diyaar u ah inay cadawga iska kor qaadaan, dad Soomaaliyeed diyaar u ah inay yiraahdaan dhibka horaan ugu filan, dad Soomaaliyeed diyaar u ah inay yiraahdaan waqtiga qabyaaladda iyo musuqmaasuqa waa la soo dhaafay. waxaa muuqata fursad ay abuureen shacabka Soomaaliyeed oo dhalinyarada u badan meel walba oo aan soo maray. waxay dadka Soomaaliyeed nagu soo dhaweeyeen gacmo furan, waxay yiraahdeen waxaan rabnaa dawlad kaliya, waxaan ka rabnaa inay dawladdu noqoto mid shaqeysa oo ka madax bannaan qabyaalad iyo musuqmaasuq. haddii dadkii Soomaaliyeed oo aan soo aragnay ay bilaabeen inay wiilashoodii u ogolaadaan in dawladda federaalku ay diiwaan geliso ay ciidan noqdaan, inay hubkiis ka soo wareejiyaan, inay dawladda la shaqeeyaan, haddii ay aqbaleen in dib u heshiisiin ka dhacdo, haddii ay aqbaleen inay khasab tahay in la midoobo, waxaa ku khasab ah gaalkacyo oo taariikhdii midnimada, taariikhdii gobonnimo doonka, taariikhdii halganka, taariikhdii halyeeyada qaybteeda ugu weyn leh. waxaa muhiim ah dhaqdhaqaaqa cusub oo ku dhisan tayada Soomaalinimo in reer gaalkacyo aada hormuud ka noqotaan. raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed ee guusha dhaliyay waxay u dhaliyeen inaan annagu sharaf ku noolaano, waxay dhiigooda u bixiyeen inaan dal kalena liidin, waxay naftooda u soo hormariyeen inaan cadow isku dayin inuu dalkeena xuduudihiisa qaadan karo. ballantii aan galnay markii aan la wareegaynay ama awoyaasheen la wareegayeen ama aabbayaasheen waxay ahayd inaan guushaas sidaas u haynayno. guushaas iyada ahi kuwii u dhimanaya markay joogeen kuwa caqabad ku ahaa, laakiin caqabadaasi maanay niyad jebin, maanay qalbi jebin, hoosna umaanay dhigin. sidii aan safarkan usoo galay, gaar ahaan sidaan gaalkacyo u nimid, markaan arkay shacabka reer gaalkacyo waqooyi iyo koonfur sida ay isu jecel yihiin, sida ay xal u raadinayaan, siday inta yaray iyagu haystaan isugu dayayaan inay u qaybsadaan, waxaa ii soo baxda keliya inaan shaqadeena sii laba jibaarno, niyadeenna inaan kor u sii dhigno, aan fahmno inay guushi soo dhowdahay, inay muuqato Soomaalinimadii meeshii la geenayay inay dhowdahay. haddii aan si kale u dhigo, caawan ka rajo badanahay inta aanan gaalkacyo imaan ka hor. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka reer gaalkacyood waqooyi iyo koonfurba sida sharafta leh oo diiran oo Soomaalinimadu ku dheehan tahay oo kulligood isugu soo baxeen labada dhinac iyagoo soo dhaweynaya dawladooda. waxaan leeyahay gaalkacyo midaysanay waa mahadsantihiin soo dhaweyntaadna soo dhaweyseen. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa labada maamul ee gaalkacyo iyo labada maamul ee dawlad goboleed, iyaguna sida sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen. waa ka abaal haynaa. shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa diiranaanta gaalkacyo labada dhinacna loo kaga soo dhaweeyay waxay ka turjumaysaa wixii la dhihi jiray Soomaali way nooshahay, Soomaaliya ha noolaato. waa mahadsantihiin.